sheekan ku haya Rabiro haye sheekadaas imika maskaxdayda soo dhacdo hadda ka hor ayaan meel ka akhriye sheekadani waxay u dhacaysaa sida tan family isqabo xaasaba meel wada deganaa kabacdi waxa Rabiro dhacday inuu ninkii guriga lahaa uu meel ku soo yar habsaamo inta badan islaamuhu way yar xanaaqan markuu odaygu meel ku soo yar habsaamo de waa wax iska yar jiro masayro talooma mid kale ku maqnaayay wax uu maagan yahay ayaa meesha ku jirta ninkan uu soo yar habsaama markii uu soo yar habsaamay baa islaantii albaabka ka xidhata waaloodu ku noqday halkaad ka timi ee aad ku maqneed ku habsaantay dahay igu soo saqda dhaxal baabka igu soo tumina walaalo iska noqo ayaa lagu yiri ninkii albaabkii de habeenkii u dhanbu taagnaa nag walaga furwaay de markuu arkay inaan laga furayn islaantuna islaan iska yar fiican oo yar xanaaqday hal mar ay tahay ayuu dhaka keena wuxuu sirniyo balcaaw ninkan saaxiibka ay jaarkaaga iskala seexo waan inay saaxiib ahaayeen jaarkiisa ahaay aroorta markuu waagu bariyana bal macallinkii malcaamadii caruurtu dhiganaysay kaasay ka yar xishootaay bal macallinka de u soo yar kaxeeyo de gurigiisa kugu soo celiyo ninkii sheekha ahaa buu u tagay habeenkii halkii uu iska seexday gurigii jaarka ninkii sheekha ahaa buu tagay war bal sheekh de waan madmadowgeyga yar batay habeenkii de waqti damban yar imaada de bal islaantii heblay way islaan wacan waana igu yar kaxsan tahay de albaabkii bay iga xidhatay bee maxaan sameeyaa kale de gurigii igu celi xal baan doonayaa odaygii sheekh dabadii uu giijiye alla maayada guriga ka xidhatay de naagta guriga ka xidhatay ixtiraamba ma lahe iskaba furba eriba waa odaygu islaha guriga kugu celiya sheekhay oo de xal iyo waan buu keenaya ayaaba ku ayaga siiye war furba waxay naagtu oo bila ixtiraam deel baabka ka xidhatay Rabiro waxa dhacday ninkii de madaxu xoqdo isagoo yaaban ayaabuu odaygii ayuu ka tagay ninkii sheekha ahaa markuu jidda xasii socdaaba shoo waxa dhageysanayay odaygii islaantiisii oo meel kana soo taagnay ninkii bay ka daba tagta waxay ku tiri war hooy ninkan sheekha hadalkiisa harumaysan gabadhaadana ha furin waa gabadhii sheekhu qabay sheekhi lahaa waa gabadhii sheekhu qabay ayaa kule ha furin gabadhaada waa ninkan harumaysan aadiya ninkan yaanu gabadhaada ka furin dabeetana de ninkii dubiisu taago u yaaba de miyaanu gabadhii sheekha ahayn buu leeyahay say wax ii jiraan aadiya xagee wax ka qaldayeen ninka waa yaaba oo waayo buu yiri waxay tiri balaana jawaabta ku siinayee caaw todobada markay noqoto bil guriga kaala haye ninkii bay balamisa gurigii buu ku soo diyaar garoobay todobadii markay ahayd oo ka soo horeeyay sheekhi buu ka soo horeeyay haye gurigii todobadii markay ahayd ay soo xaadiriyay ninkii sheekha ahaa waa isagu sheekho markuu salaada cishaay ka baxo tafsiir buu yar galaa masjidka dhaxdiisa oo adigu goor abaara 8ka ayuu de guriga iska yimaada markuu cishaay iska soo tukado waxa dhacday ninkii baa soo yar habsaamay oo marmar way ogtahay habeen inuu tafsiirka iyo masjidka uu ku soo yar habsaamo nin kale ninkii baa guriga yimi haye kiyo yar habsana islaantii baa de u adkaysay albaabka ka furi weyday ku tirwaalada halkaad ka timi ku noqoniyo dabeetana alla xaajiyo maxaa dhacayo waa kanoo waar anagu waxa ka qorimaayay niyo shuruud baan ku xidhay bayna albaabka ka furo oo maxaad ku xidhaa de horta ma ka soo baxaysaa ninkii waa yaabay oo wuxuu yiri bal waayahay ii sheeg waxay ku tiri inaad markaad soo gasho guriga aad ii foorsatad jilbaha intaad dhulka dhigto aan dhabarka kaa fuulo oo sida ariga igu cidid ayaa ku xidhan alla oo ma intaasa naa waxa wax ka weyn baan ku sameeyaa iga fur iyadoo dhoolatus uga dhigaysa sheekhi kala joogay de sheekhina halkan ninkii guuri gabadhaada fur uu sheekhani ku yiri halkan daaqadu ka daawanaya waata ku tiri de balkaalayo eeg adigu dabeetana ninkii waa naama intaas oo kaliya taa sheekhi war waa intaasa Rabiro wuxuu sameeyay way ka furtay albaabkiyo halkii buu de jilbaha dhiga dhabarkii ka fuusho yixibay ku tiri maxaa sida ariga igu cid de halkii buu sheekhi macaada ka yar gura xoogaa taniyo sheekhadu master xaka iyagu waa bariba de sheekhadu waa bariye kala isku maayo haye kabacdi waxa dhacday Rabiro ninkii
dee markay xoogaa ay islaantii odaygii halkan ka bacaleeyay dee tusaale nool bixisay ayay ku tiri waar sheekh waan kula kaftamaye sheekh wanaagsan baa tahoy jecele orodoo dee iska tawakalo qolkaaga iska gal sheekh dib markuu qolkiisa yaraa iskaga ururay buu ninkii ku tiri waabla soo baxa daba adiguna soo ma haysatid tusaale orodoo iska tag gabadhaadana ha furin calaashaan aniga wax kasta wuu ii samaynayaa dee taada muxuu kaaga furayaa تمي يعني ها متى كلام شو كسودي واحد وي شيخ لفتر كيس الضبط قشتة استري واحد كوح اللي aadiya في قبل يسوق كضم بيا aadiya أظن قصة يريد الأحمر تيسكيلو كذا كضم بيوي dee ka dambeeya ixtiraamku yaan dee nin gurigiisii dhisan yahay gurigaaga yaanu duminin waxaa dhacday rabirow inay ninkii dee sidii ku baxay gurigiisii buu tagay islaantiisii buu raali geliyeeyo dee halkii heshiis weyn waafiya baa ka dhacay maalinkii dambaba iska hor yimaadeen labadii nin sheekh iyo ninkii kale waar hebel ii waraa khayr alxamdulilah iyo warnin horta gabadhii ixtiraamka darnayd ee albaabka kugu xidhama iska furta suuri oo maxaanu furayaa oo sootii gabadha wax xilla kugu samaysay maaha manaagta saqdhaxa albaabka kaa xidhatay ee gurigii kaa irideeye aan ku ixtiraamine een kaa dambaynine war dhegayso muu ku yidhi sheekhow nin kastaa gurigiisa macaca buu ku joogaaye sheekhaynu isdeyno ina kala meermeeri سوس فهم الشيخ dee wuu isfahmay sheekhi dee halkii buu islaantiisii ku noqday naa heblaayo dee ninkii hebel baa maalin dhaweed sheeka noocaas ay la yimi gabadhaada iska fur baan ku uri dee isaguna maalin dambaan is aragnay buu igu yidhi nin kastaa gurigiisa macaca buu ku joogaaye say wax u qaldan yihiin dee waxay tiri anaa idin maqlaayay maalinkaad lahayd gabadhaada iska furo dee waan u yeedho waxaan ku uri bal kaale aniga sheekhaygu siduu iiga dambeeye eeg ninka gurigaa burburinaya aniga siduu iiga dambeeye kaalaya eeg baan ku uri dee waa adigii ii foorarsadee macaada guray dee markaa sheekh adiguba gurigaaga ma doona sida inuu dumo waad iga dambaysaa dee maxaad ninkan gurigiisa u duminaysaa dee halkii buu sheekadii ka fahmay uu shibka yiri لا فكر تشوف ذا قبائل aadiya weliba iyadii u mahad celi ku uri dee walaahi guri islaam ayaad badbaadisay واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa